today with the French government, and we are very happy and very glad warm welcome received to us. And during the meeting, we discussed some very important points, particularly points regarding the priorities of the new cabinet of Somali government, and we more or less had the common understanding and the common approach. Among the points we discussed is excellence, widely explained, reflects the reconciliation process with outreach approach and all-inclusive. Thank you very much. daawadayaal markii uu dhammaaday socdaalkii ra'iisul wasaaraha uu ku joogay Paris ayuu dib ugu laabtay magaalada Nairobi kadibna waxa uu ra'iisul wasaaruhu u ambabaxay magaalada Muqdisho barnaamijkii gaarka ahaa daawadayaal waa inaga intaas waa sharaf dawladnimadu didi mayne waan doonaynaa waa sharaf dawladnimadu didi mayne waan doonaynaa fursadan dahabiga dadkaygo haddaayicin wayga digniine fursadan dahabiga dadkaygo haddaayicin wayga digniine barnaamijkeeni Somalistartv qaybtii koowaad oo hadda nala daawaneyseen wuxuu ahaa ra'iisul wasaare Nuur Xasan booqashooyinkii uu ku tagay Europe gaar ahaan Belgium Brussels iyo arigaas iyo Faransiiska maruu tagay Paris qaybaha labaad ee booqashooyinka markuu noo soo gudbiyo wakiilkeena dhinaca Europe oo naga ballan qaaday in booqashooyinkii uu ku yimi ra'iisul wasaaraha uu noo soo gudbin doono waxaan mahad uga celinaynaa Xasan Taabit